maanta waxaa dalka soo gaaray wafdi ballaaran oo ka kooban 30 xubnood oo hogaaminayo madaxweynihii hore South Africa Thabo Mbeki oo ahna gudoomiyaha waxa loo yaqaano panelka AU High Level Panel for Implementation oo hadda u qaabilsan geeska Afrika iyo badda cas iyo dalalka geeska Afrika iyo dalalka ku meersan badda cas iyo khaliijka cadan wafdigu laba bari ayuu dalka joogayaa ujeedada socdaalka wafdigu wuxuu ahaa inay madaxda Soomaaliya kala sheekaystaan arrimo la xiriira amniga gobolka geeska Afrika iyo badda cas iyo khaliij cadan ama iskaashiga dhaqaale gobolka geeska Afrika iyo horumarka xagga siyaasadda gobolka ka jira waxay kooxdu sameyn doontaa baaritaan 3 qaybood oo 3 madaxo aan sheegay ama 3 mawduuc aan sheegay ku saabsan waxaa la socday iyaga khubaro Soomaaliya oo qaarkood ka qayb galaya cilmi baarista arrinta ku aadan waxayna rabaan inay dawladda Soomaaliya oo dalkii labaad oo ay booqdaan Kenya soo booqdeen awal geeska Afrika iyo dalalka khaliijkana waa ku wareegi doonaan ama daliilka badda cas ku teedsan iyo khaliij cadan waxay doonayaan inay arrimahaas baaritaan cilmiya ka sameeyaan ka bacdina ay talo ka soo saaraan loo gudbinayo ururka midowga Afrika